وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قول وعن عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو اكوار وادنكين قول وعن عدوك وابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو اكوار وادنكين ودنكين ودني تركينا ورابنا يديقو انكوار دينا ودنكين ودني تركينا ورابنا يديقو انكوار دينا عدوك وابو نولو الوناكسن يا برواقو نبت لقو وداقو اكوار ودنكين ودنكين ودني تركين ورابنا يديقو انكوار دينا ودنكين ودني تركينا ورابنا يديقو انكوار دينا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كلي أرضي مركي قال جبريسو وزارة فربضان بقيب كاه إن يقيب كنقضان ومهم وهو وزارتها أما أرضي ديزاينز كامل ديجيتال كبرتها waxaan sidaan xusayay inoo la joogo wasiirka dhalinyarada waxaana la jooga la taliyaha wasaaradda waxbarashada Axmed Shariif oo isaguna ka wakiila wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda teknolojiyadda aan u yeero Khadra Ali oo ah hargab business manager iyo harhab balse ay iyaduna maanta kelmadeed halkan ay inoo soo jeediso waxaan aad u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay inaan qabashadan xafladan waxaan sida kale u mahadnaqayaa waalidiinta naga soo qayb gashay xafladan iyo madaxda sare waxaan sida kale u hambaleynayaa ardayda qalin jabinaysa maanta oo waxay tahay dufacdii labaad oo hargabit dugsigiisa oo qalin jabiya waxa ii farxad ah inaan ardaydan xorinta leh oo aad waxaan ugu sii faraxsanay mid kale hablaha oo iyaguna aad laga yaabo soo cortintooda ilaahay ku munaasaday I tried marka waxaan aad ka hadlayaa creativity-gooda oo inaan af Ingiriisiga ku noqdo marka creativity badan ayaan aad uga arkay ardaydan oo aad u dadaalay 4 bilood la joogay waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo
Ahmed Ali oo dadka ka mid ahaa oo la aasaasay iskuulkan oo wuxuu noo faahfaahinayaa wuxuu iskuulka yahay. So presentation yar buu noo samaynayaa insha Allah. So waxaan kusoo dhaweynaa Ahmed Ali. Marka aad baad u mahadsantihiin, hambalyo dhammaantiin, aad baan u dadaasheen, waan ku faraxsanahay inaad maanta nala soo gaadheen heerkan. aad ugu hambalyeynaya dhalinyarada maanta halkan ku qaybgalinaysa. marka labaad waxaan maanta labaad soo dhaweynayaa oo mahad celinayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasaaradda waxbarashada, ganacsatada, waalidiinta iyo dhalinyarada dhammaantooda halkan maanta nala jooga oo u dabaaldegaya xafladda qalinjabinta maanta halkan u joogno. waxaan doonayaa inaan maanta idiin fiiriyo warbixin yar oo ku saabsan iskuulkan iyo sidii uu ku bilaabmay iyo siduu ku yimi iyo fikirkii ka dambeeyey in iskuulkani bilaabmo si ay uga heshaan xog ku saabsan iskuulka oo aynu usii wadano hadhowto wasiirka ugu soo dhaweeyay hadalkiisa suu markaa laakiin marka hore uga helo xog ku saabsan waxay maanta la joogno. 2016 bishii lixaad ayaan waxaan isku daynay in aanu u samayno dhalinyarada halabuur kale aan jaanis u helin waxbarashada jaamacadaha inaan u samayno xirfad ay ku shaqo tegi karaan si ay markaa ola jaan qaadi karaan suuqa shaqada. marka barnaamij ayaan ku samaynay xog ururin kooban oo lagaga hadlayay sideeba dhalinyarta halabuur kale laakiin aan waxbarashadii jaamacadaha jaanis u helin loogu samayn karaa xirfado ay ku shaqo tegi karaan. waxaan samaynay iskuulkan waxaan baadi doonaa iskuulkan ama maxay ahayd toy academigan loogu talagalay lagu baro xirfadaha skillska ICT-ga ama waxaan la yidhaahdo technology-ga. iskuulkan wuxuu ku yaalay 8 waddan, Somaliland baa wax ku noqotay kii 9aad. markaan ku qancay shaqooyinka iyo xirfadaha uu bixiyo ayaan waxaan ugu talagalay inaan halkan ku samayno. kadib research aan samayno waxaan doonayay inaan ogaano maxaa dhalinyaradu la bari karaa si ay ugu shaqo tagaan. koorasyo fara badan ay dhigtaan BITS Academy. marka BITS-ka iyo waan macnayn doonaa maxaa halka BITS loogu bixiyey waxyaabahaas. marka waxaanu isla eegnay in aan ogaano suuqeena maxaa ka soconaya, ardayduna maxay baran karaan. marka ayaan waxaan soo saarnay inaanu bixin karno xirfadahan ayna dhalinyaradii ka qayb jabinayaan. xafladdan waxay xafladdii ugu horreysay aanu sameynaynay akaademiyadan ama meeshan dhalinyaradu ay ku bataan xirfadaha. waxaa joogay waalidiinta sidoo kale waxaa joogay dhalinyarada aan doonayna xirfadaha bataan, waxaa joogtay siyaasiyiinta, waxaa joogtay annaga, waxaa joogtay hooyadii naga caawinayay. wax aan wada samaynay bay ahayd maaha waxaan shaqadoon keligeed intay meel fadhiistaan ay soo samaysay. annagoo isla eegaynaa sideeba ugu habboon in dadka wax loo bareekaa. xafladdan markaa waxay ahayd maalintii co-creation workshopkii la wada abuurayey iskuulkan ee bilowga xafladda lagu abuurayey ee lagu aasaasiyey ee magacana lagu bixiyey. waxay magacana ku keliyihiin maadaama iskuulkani oo qayb ka yahay iskuul international oo la yidhahdo BITS Academy. waxaanu ugu talagalnay kuwa ka Nairobi ku yaalla waxaa la yidhahdaa Nairobi BITS, ka ku yaalla Qaahiro waxaa la yidhahdaa Cairo BITS, ka ku yaalla Nigeria ECOBITS. marka waxaan ugu talagalnay inaan magac u bixino. magacyadana la soo taxay maalintii markaa waxa soo taxay weliba dhalinyarada markaan doonay inay ka faa'iidaystaan ayaanu iskuulka dhigan doontaan magac soo bixiya idinkaan ka tegin markaa BITS-ka. marka qaar waxay soo sheegeen naso BITS nasaha loo bay doonay inay dhahaan naso BITS, maro BITS, daro BITS, kamo BITS maxaasay soo bixeen. aakhirkii waxaa lasoo saaray magaca ay u qoran tahay ka ugu sarreeya harka BITS oo markaa dadkii meesha joogay ay 4 ka bidaayo codeeyeen in magaca loo bixiyo. kadib waxaan isla qorsheynay si koorasyada la bixin karo ee maalinta iskuulkan lagu bixin karo noo kusoo koobnay in dadka la baro xirfadaha shaqaynta sida graphic design-ka, waxaa la yidhahdaa motion design-ka, videoyadii sida loo magaranaysaa sameeyo, sida loo editgareeyo, sida loo magaranaysaa loo qurxiyo, iyo animationskan kartoonka filimaanta kartoonka sida loo sameeyo
sidoo kale sida website-ada iyo mobile applications telefoonada loo dhiso oo loo sameeyo. Kabacdi waxaan sameynay tartan ma ahayn cid gaar anagu maanaan soo gelinayn annagoo kaashanayna 3-4 oo waaweyn ama hay'adooda ama community-based organizations CBO laba ay degan tahay daanta labada kalena ay degan yihiin ka shaqeeyaan daanta si ay u soo xulaan dadka iyagu maadaama iyagu community-ga u waxayaan dhalinyarta ay aada ugu dhowyaayeen inay iyagu marka hore ay bulshada koobaad keenaan annaguna hadduu sii kala shaqeyno saan u qaadano dhalinyartaas. Kabacdi markii nala soo gudbiyey liiskan waxaan sameynay interview warays in qof walba aanu eegno qofkan inuu xirfadan u baahan yahay inay ka go-an tahay inuu harsano xirfadaasna uu baran karo. Sidaas oo kale markaa waxaanu hubinaynay in aan qof walba u meesha tegi karin. Waxaan doonaynay inaanu ka saarno qofka jaamacaddii awoodaya inuu jaamacad tago ama uu jaamacad dhigtaa inuu meesha iska yimaadaan diin. Waxaan doonaynay inaan dad u baahan fursadan inaan uga faa'iideyno ayaanu markaa interviewgan u qabanaynay. Macallimiinta iyada waxaa lagu soo tababaray wadamo kala duwan si ay ula jaan qaadaan curriculumka markaa meesha lagu dhiganayay oo ay wax uga bartaan. Markii koowaad waxaa la sameeyey 2017 ayaa markaa klaaskii koowaad furnay oo ay dhiganayeen arday ku dhow 42 arday. 42 arday waxay baranayaan xirfadaha kala duwan ee imika soo sheegnay. Muddaduna waa muddo 1 sanada. ardayda waxay raacaan barashada skills-kan xirfadahan ICT-ga ama xirfadahan digital skills-ka la yiraahdo aan u maraynay inay yihiin kuwa soo qaban karo shaqada badan ee suuqa aad ugu baahan yahay. Waxaa ku jira magarta fursado kale oo ay dadku ku tagaan waxay tahay dadkiisyo meelo kale aan ugu qaadno ay soo ogaadaan halkan waxa weeyaan buurta Gacanida halkan waxa weeyaan buurta Laaskiil boorbe jaamacadda boorbe tagaan si ay wax u soo sameeyaan halabuur cusub soo kordhiyaan. sidoo kale waxaa ku jirta tartan ka halabuurka ganacsiga inay la yimaadaan tartan halabuur oo ay ku ganacsadaan fikrada ideas anagu fikir shaqadan ahaan doo marka koobaad kooxda waxaa qofku inuu soo fikrad la yimaado inaan shaqadayna waa qof waa haween fursada labada laakiin marka hore waxaan qofku soo shaqo abuuran karo anagana aan ka caawino siduu shaqada abuuran lahaa haddii qofkaasi uu leeyahay abuuran kari waayo isagoo ganacsi inaan markaan shaqo geyno tani waxay tartan ay guddi madax bannaan ay qiimeynayeen ay kusoo bandhigayeen dhalinyaradu halabuurkooda ganacsiga. Tani waxay ahayd graduation-kii koowaad 3 jeer baa la qaran jabiyaa 3 kooras buu isku jiraa maxay ahayd sanad qadan dhigtaa 3 semesterka koowaad iyo kalabaad 3 jeer baa qaran jabi baa la sameeyaa ardaydu mar walba semester qaran jabiyaba wuxuu chance u helayaa in uu markaa uu iska shaqo tegi karo uu kooraska ka bixi karo laakiin isagoo bartanka ka jira ma bixi karo. marka qalinjibintii labaad qalinjibintii saddexaad dhalinyartii hore dhalinyartu markay qalinjibiyeen waxa ay sidan oo kale u qalinjibiyeen maanta qolada inay qalinjibinayso waxaan ku bixnaa practice suuqa ganacsatada sida ugu shaqeeyaan. halkan waxaa weeyaan laba ka mid ah ardaydii kastoo meesha aan yaqaaneen 30 baa naga qalinjibiyey sanadkii 2017 soddonkii 5 kadib waxaa shaqeynaya kambanida waaweyn suuqa ugu shaqeeya xirfadahan qaran. laba ka mid weeyaan ardayda aan sawirkooda waxaan usoo qaaday oo u shaqeynaya kambaniyo kala duwan mid uu inala joogaa uu inooga warrami doonaa sidii ay markaa ay shaqada ku heleen iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan. marka shaqadoon ayaa mas-uuliyadda qabta in qofku markuu graduate gareeyo ama u qalinjibiyo sidan ay qolada maanta u qalinjibinayaan in ay shaqo geyso maaha lama sii daynayo ardayga annaga mas-uuliyaddeeda ah inaan qofkan shaqada ku xidhno laakiin inaad sii adkaysato shaqadaasi sii joogto waxay ku xidhan tahay ardayga u qaada. qaarkood waxaan u sameynaa kuwa halabuurka la yimi waxaan u sameynay ganacsiyo annaga oo markaa noo qabanay kuwii halabuurka ganacsiga soo bandhigay halkan waxay arkasna sabaraan ay dhalinyartii ugu doosiin iyo maalgashi ay ku bilaabayaan fikradooda ganacsiga ay soo bandhigeen oo ay ku shaqaystaan waliba xirfadihii la baray iyagoo markaa ugu bedelaya halabuur ganacsi. halkan sidoo kale waxaan siinaa space ama meelo ay ku shaqaysan karaan waxaan u baahnay magarasa inkastoo maadaama caqabad tahay inay dhalinyartu ay suuqa ka heli karaan
xafiisyo ay ku shaqeeyaan ama uu qaali yahay ama kiradu ay ku qaali tahay waxaan ugu talagalay inaanu halkan xafiisya ka siino internet bilaash ka siino coffee iyo sharaab iyo meelo dadka kula kulma kastabarkiisa ka siino aanu caawimo haddii qofku khibrad u baahan yahay ama wax kale ama studio wax ku edit gareeyo ama service kale aanu halkan ku siino classkan waa ardayda halkan kala jebinaysa oo 2018kii iminka oo kala jebinaysa marka waxaan doonayaa intaas inaan si guud aan idiin fahansiiyo iskuulkii wuxuu qabto aad baad u mahadsan tihiin waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha si uu markaas ku hambalyeynayaa dhalinyarada maanta ka qalin jebinaysa graphic design-ka iyo digital systemka iyo video editing iyo shaqooyinka caynkaasa iyo waalidiintood waxaan kaloo halkan aada ugu mahadnaqayaa shaqadoon muddadii yareeday jirtay waxyaabo badan oo qaranka u jabayay bay qabatay exaldina waxaan u malaynayaa inay abbaartay halkii ay ahayd baahideennu ugu weyni waa farsamo dadkan in xirfada la baro waxa weeyaan waajibaadka ugu weyn dhallinyaradeenna boqolkiiba 75 haddaan 80 ahayn baa waddankeena dhallinyaro ah dhallinyaradaasu duniduna waa world of technology dunida haddaan dhallinyarada xirfad la barin shaqo la-aantan weligeenba ka bixi mayno waagii hore anugu waxaan ahaa dadkii nasiibka u helay inay xirfadaha bartaan isla markaana waxaan markaan jaamacadda ka baxay dadkii haddana ka sii shaqeeyey meelaha dadka lagu tababaro oo ahaa agaasinkii waaxda tabarada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya in fact dadka waxaan u wada sameynay curriculum ay leeyihiin mana ahayn dad exactly dadka toos wuxuu bartay jaamacadaha helay ma ahayn waxaan dadka kale ee caadiga ah isla xirfadahooda baa lagu sameyn jiray job training halkaasaanu serviceka ku bari jirnay waa la dalacsiin jiray sidaasay aqoonyahan ku noqon jireen iskuuladii keliya technicalka ay jiri jiray waan anagu ka baxnay qof bilaa shaqayhin uguma jirin bilaa shaqada waxaa noqon jiray uun ardayda ka soo baxda secondariyada kuwan erstu may noqon jireen anagu maana noqon jirin inta kuwii CTC-da may noqon jirin dadka professionalka shaqadoon waxaan ku ammaanayaa iyo harka bitis iyo kusi subset of shaqadoona waxaan aad iyo aad uga ammaanayaa sida ay u heleen halkii ay dadku u baahnaayeen waxaan kaloo aad ugu ammaanayaa muddada yaray jireen iyo inta ay qabteen 9,450 dhalinyaraha waa ka baxday 40% shaqooyin bay heleen ama ganacsiyaal loo abuuray 2018 keliya 650 bay marayaan wadada ka soo baxday aad iyo aad baan marlabaadii mar saddexaad ugu mahadnaqayaa waxay kaloo abbaareen siyaasadda annagu xukuumaddaanu ka tirsannahay oo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ka yahay waxaan shaqadoon ogeysiinayaa ayaantii hore halkan lagu bixinayay kaalmooyinka la siinayo dadkan hal-abuurka lehna waan ka sheegay by March haddii la yidhaahdo inagoo iswada kaashanayna waayo dhallinyaradeenna dowlad keliya waxba kama qaban karto dowlad iyo ganacsato iyo hay'ado iyo inama sideenanoo kale fikiray oo ku soo celiyay maskaxdoodii waddanka oo iswada kaashada baa wax ka qaban kara waxa kaloo wax ka qaban kara waalidiin iyana u dadaasho 24 saacadood baa ilmahooda la socota by March waxaan idinku ballan qaadayaa haddii la yidhaahdo annaga sanadkii hore aanu dowladdan way dhalatay by February madaxweynuhu wuxuu ka dhigay first priority dhalinyarada sanduuqii dhalinyarada hal-abuurka laga caawinayay wuu sameeyey lacagtii sanadkii horena waa lagu shubay tanna waa lagu shubayaa lacagtaas oo dhan intaynu iskugu nimaadno si daahfuran baynu u caawin doonaa dadka ganacsatada abuuranaya haddii alla yidhaahdo shaqadoon toos bay uga soo qaybgalaysaa sidaan aanu ku bixinay habeenkii halkan aanu shaqo abuurka ku bixinaynoo kale sidaasoo kaloo transparenta baynu bixinaynaa
shaqaabuurna dee insha allah waxaa laga doonaya iyada lafteedu inay dee gobollada kalena usii yara dhaqaaqdo halkan waxaan ka daawanayay maxaa ardada halkii la geeyey dee gacanlibaax ba ugu shishaysay dib baa loo soo noqday shiikh iyo daalo iyo waxaas loo wada sugayaan haddii aan la yidhaahdo inaad sii kordhisaan mar labaad iyo mar saddexaadba dhallinyaradan u dhabar adeegtay inay waxbarato oo anfacdo waalidkood waxaan leeyahay ilaahay haydin guuleeyo waalidkiina waxaan leeyahay ilaa intaa usoo samirteen ilaahay haydinku guuleeyo waxaynu isku ognahay dowlad iyo shacbi iyo ganacsato inaynu dhallinyaradeenna wax allo wixii aynu u qaban karno aynu u qabanno waa inaan waxba kala hadhin dee alla yidhaahdo insha allah sanadkan cusubna isbedelo badan ayaa arki doontaan haddii alla yidhaahdo aad iyo aad baan idin wada salaamayaa waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan idinka tegayaa anigu safar baan ku jiray safarkaa dhallinyarada aawadeed baan dib ugu soo noqday inaan kala sii qayb galo boora baan qabanayaa iyo ciyaarihii iyo wixii baa laga furayaa galabta haddii alla yidhaahdo dee aad baa u mahadsantihi waxaa ka tabelo fadhiga agaasimaha waaxda ICT ee wasaaradda teknolojiyadda waxaan jecelahay ka hor intaynaan gabagabada barnaamijkeena aynaan gelin in aan u yeedho laba arday cabdiraxmaan iyo faysa oo presentation inala wadaagi doona waqti badan bay noo hureen waxyaabo badan oo aanan fahansanayn baan fahnay waxaanan rajaynayaa insha allah inaan noqono dad anfaca dalkooda iyo diintoodaba sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shaqadoon oo ah shirkadda hay-addan agaasintay iyadu in ay dhallinyarada u sameeyaan shaqo abuur waxaan rajaynayaa inay halka kasii wadaan shaqo abuurka ay samaynayaan maxay hatay oo ay usii dhiirigeliyaan dhallinyarada si dhallinyaraduna ay u joojiso tahriibka iyo waxyaabahan ay ku dhaqmayaan una soo baxaan dhallinyaro maxay hatay shaqaynaya oo hadday noqoto inay madaxtinimo galaan hadday noqoto inay waxyaabo kale ku shaqaystaan xifrado kale dhallinyaradu marka loo soo jeesto loo sameeyo maxay hatay iyaga la abaabulo oo iyaga helaan waxay ku dhiiradaan way wada dhiiranayaan kuwa yaryar waayo imka dad aad u yaryar baa ku jira dad waaweyn baa ku jira dad dhexaa ku jira somehow si kuwii anaga naga horreeyeyba iyaguna saasoo kale bay ahaayeen waxaanan nahay anagu dafcaddii labaad oo insha allah waxaan rajaynaynaa inuu sii jiro iskuulkani oo noqdo mid imanka laga wada yaqaano waddanka somaliland oo aanan kusii fidno annaguna aanu sii gaadhsiino haddaanu nahay dhallinyaradii ka qalin jabisay harga betis magaca harga betisna uu sii jiro oo aanu gaadhsiino gobolada somaliland oo dhan haddii aan usii gudbin karno wadamo kalena aan usii gudbino somehow uu ka jiraa wadamada caalamka oo la iswada gaadhsiiyey laakiin wuxuu ku yeeryahay waa waddanka soomaalida intay soomaalidu degto waxaan rajaynayaa intay soomaalidu degto inaan anagu wada gaadhsiino maadaama aan nahay dafcaddii labaad ee ka qalin jabisa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aanan ilaawi karayn marna macallimiinteeda sharafta leh halkan na soo gaadhsiiyey saddexdeeda macallin guuleed xasan iyo guuleed cabdiqaadir iyo guuleed odawaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamuladayada ama managerkayga khadrax maxamed waxaana leeyahay thank you ilaahay khayr jazaakum allahu khayran ilaahay ha idin gaadhsiiyo cimrigiinana cimri dhar aad baan idinku mahadcelinayaa dhallinyarada waxaan leeyahay idinkuna hambaliyo waxaana kusoo dhaweynayaa cabdiraxmaan oo ah arday ka mid ah ardaydeeda soona bandhigi doona waxyaabaha aanu qabanno iyo waxyaabaha aan dhigano saddexda qaybood saddexdeeda fakale aanu kala nahay soo dhawo cabdiraxmaan maanta waalidiinta iyo macallimiinta maamulka hargabits iyo marti sharafta inala joogtay mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin dhammaantiin waxaan ugu salaamaya salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim jaamac waxaan ka mid ahay ardayda maanta qalinjabiyeysa waa dufcaddii labaad ee akademiyadda hargabits ee maanta qalinjabiyeysa waxaan idinla wadaagi doonaa presentation kooban oo ku saabsan waxyaabihii ay soo qabteen ardayda maanta qalinjabinaysa hargabits intaanan bilaabin presentationka haddaan waxay idinka sheego iskuulkan hargabits sanadkii hore ayaa la furay 2017kii wada aragtaan waxyaabahu gaarka ku yahay iskuulkan ee lagu mahadiye ardayda badankoodina ay u dhigtaan ugu qalinjibinayda ka faa'iiday waxa weeyaan waa creativity weeyaan waa arday wax corinaysa weeyaan wax cusub soo saaraysa maanta wada qalinjibinaa dhammaanta iyagoon wada faraxsannahay waxaa noo soo gabagabooday hal sano
sano aanu kusoo jirnay geedigii waxbarasho ee iskuulka akademiyadda waanu ka baranay skills kala nooca oo ay ka mid yihiin motion design oo ay soo hoosgalayaan video production editor ilaa iyo heer uu qofku ka gaarayo director xilli uu isagu wax qoriyo sheeko sameeyo film ka samayn karo ama barnaamij heer caalamiya samayn karayo iyo qayb kaloo ah graphic design oo iyaguna aha qaybta designka oo aan design loo baahdo iyagoo maanta samayn karaya oo wada iyo qaybta saddexaad oo web development ama waxaynu u yaqaano app development oo ah qolyaha sameeya websaytada iyo applicationada waxaan rajaynayaa ardayda maanta qalinjibinaysa beritoole ee waxay ka dambeeyay inay samayn doonaan software ka qaalisan kuwa adduunka lagu sameeyo sababtoo ah waxaan saa u leeyahay waa arday da-yar oo da-dooda aada u yar tahay softwareada waxaan rajaynayaa inay kuwa ka duwan soo saari doonaan oo ay ka mid yihiin softwareka adduunka ugu badankooda isticmaalaan ee loo yaqaano windows ninka la yidhaahdo bill gate uu ku taajiray ilaa maantana uu ku haystay kaalinta koowaad ee taajirnimada adduunka intaan presentationkayga sii wadin waxaan idinla wadaagi doonaa sheeko kooban oo ku saabsan mid ka mid ah ardayda hargabitis sababtii uu halkan kusoo galay iyo maanta uu heerku marayo magaciisa iyo waxa uu yahay gadaal ayaan insha allah idiinga sheegi doonaa sawirka halkan idiinga muuqdaa waa isaga isdisaangareeyey waad aragtaan waxaa la moodaa qof farshaxana wuxuu bartay ayuu ku disaangareeyey oo loo yaqaano Adobe Photoshop oo ka mid ah applicationka Adobe Suite-ka ayuu ku sawiray sawirkiisa computer ayuu lagu sawiray kan waa arday yaraantiisii ilaa hadda waxbarashada ayuu aada u jecel yahay cilmiga tiknoolajiyadda ayuu jeclaa markii uu koray inuu barto dadaal badan kadib 3 sano ka hor ayuu dugsiga sare Faarax ama secondary school ka baxay 8 dugsi oo uu ka soo bartay iyo 15 sano oo jidka waxbarasho ku soo jiray hadda 3 sano ka hor ayuu form 4 ka dhameeyay haddana habay yaraatay cilmi tiknoolajiyadeed waxba kama uusan garanayn waxaan habaas wanaag meel wuxuu ka bilaabo ma uusan garanayn mar uu isku dayay inuu diyaarad sameeyo looxyo ka samaysan dadku waxay ugu warceeyeen war hawaalane waxaan joojin hal sano ka hor fursadda habiga ayaa soo martay ma uusan habanay hab ayuu siiyey oo laabta ayuu gashay fursaddii soo martay bilow dhiiranaan waxbarashada fursadda ka yimid walilaa 5 bilood markuu dhiganayay ayuu ka baxay duruuf daneed awgeed duruufta daneed hodhow ayaa gadaal iga sheegi doonaa xigmad yar ayaa ku jirta laga yaabaa inaad badankiidiiba duruufta daneed aad si kala macnaysataan dhaco kuf mara badan waayo fursaddii ayaa qanciisa ka baxday mase awoodin inuu dib ugu soo noqdo sababtana gadaal ayaa iiga sheegi doona uu dib ugu soo noqon waayay mar labaad ayuu fursaddii raadiyey 5 bilood kale ayay ku qaadatay inuu dib u helo fursaddii uu markii hore iska lumiyey bilow mar kale waxbarashadii fursaddu keentay hadda ayuu dhameeyey waxayse ku qaadatay 2 sano inuu ku barto xirfad ardaydii hore ee qalinjibisa ay ku barteen 1 sano hadda ugu yaraantiisii waalidkii macallimiintiisa jaarkiisa iyo cid walba oo isaga garanaysay waxay ku xanti jireen wuu fahmo fiican yahay hadda awal fahmadii mise asagaan hore uga faa'iidaysan fursaddii soo martay waxaa laga yaabaa inaad dhammaantiin la yaabantihiin sidaan kuu helay qisada wiilkan oo faahfaahsan wiilkaan idinka sheekeynaya cid kale mee waa aniga cabdiraxmaan ibraahim jaamaalo fursadda aan idiin sheegayna waa iskuulkan hadda maanta ka qalinjibinaya hargabatis oo aan sanadkii hore ka mid ah dufcaddii hore qalinjibisay bilowgeedii aan ka mid ah 5 bilood markaan dhiganayay ayaan ka baxay duruuftaan uga baxay maaha duruuf dhaqaale oo iskuulku waa bilaash oo free taa waxaan uga mahadnaqaynaa hay'adda Oxfam Butterfly iyo iskuulka hargabatis iyo shaqadoon oo abaal weyn aan u hayno
laakiin duruufta talaada uga baxay waxa haysay inuu dibadda u dhoofo han dibadeed ayaa hayay markaan ka baxayay waxaa soo baxay scholarship Turkiga oo jaamacadeed lacagtii waan diray jaamacadda iyo TV-ga iyo imtixaanka waan diray May 18 sanadkii hore ayaa imtixaanka scholarshipka Turkiga u fariisto oo macallimiin Turkiga Hargeysa looga yimideen waxaan mahay 200 arday ka baxay iskuulka wax ka bartay sanad iskuulka Salaam Secondary School laakiin waxaan ugu dhacday dalabkii markii jaamacadda loo furay ayaa naga diiday oo waxaan saxiixin madaxweynaha Turkiga sabab siyaasadeed awgeed hadda waxaan toos u bilaabi doonaa intaas iga waxay ahayd hordhacay presentation-kayga aan hore bilaabi doonaa halkan waxa idinka muuqda waa graphic design mid ka mid ah koorasyada ay bixiso akademiyada Hargabis oo loo yaqaan graphic design laga yaabo badankiina inaad maqasheen laakiin aysan garanayn waxa uu yahay graphic design si dhabaan waxa uu qabto graphic design waa sidaan hore nagu soo sheegay waxa la sameeyaa ama design gareeyaa wax walba oo loo baahdo ay ka mid yihiin boorarka ku dhigsan banaanada ama boorarka waxa loo yaqaan ID card-ka ay ardaydu xidhaan business card-da buugaagta samayntooda iyo ani designs uu ka mid ahaa sawirkii hore qofku wax kasta ku design gareyn karo computerkiisa hadda waxay naga muuqda warmuus laga yaabo badankiina inaad u aragtaan inuu yahay sawir muuse caadi laakiin waxaan idin sheegayaa inuu sawir muuse ahayn oo mid ka mid ah ardayda Hargabis ee qaybta graphic design-ku isagu laftigiisu computerkiisa ku sawiray ambaliya ardayga leeyahay sawirkan markaan arkay laga yaabo badankiina inaad rumaysan anigu way nala mid baan ahaa intaan arag sawirkan markaan arkay ardayda ay sameeyeen qaybta graphic design-ku runtii waa la yaab waxaan soo xasuustay film Hindi ah oo Hamtam Shahrukh Khan matalay sida loo disaangaray aktaradii actorkii oo yeelbad wadaaba waxaana sawirtay inan ka mid ah qaybta graphic design-ka ee maanta qalin jebinaysa oo aan filayo inay nala joogto halkan waxay nooga sii socdaa dad maqli jirteen waxqabadkii dawladii hore maanta waxaan idin sheegayaa waxqabadkii ardayda Hargabis ee maanta qalin jebinaysa kuwana waa mid ka mid ah waxqabadyadii ardayda ay sameeyeen waxaa ka mid ah bantada arkaysa iyo restaurant bantada laftigeedu sawir ma aha waxyaabahan dhammaantiin ina tusi doonaa haddaan ila xasuusiyo waa wax dhammaan ardayda maanta qalin jebinaysa graphic design-ku ayaga qalcadooda ay ku sawireen maskaxdoodana ay ku celiyeen ayna waxay barteen macallimiintu ay bareen ay ku sameeyeen kombiyuutaradooda bisada malaha filkartoon baa la moodaa laakiin waa mid ka mid ah waxyaabaha aan ku faanayno maanta aan ku qalin jebinayno runtii aan ku faraxsanahay Hargabis sida hore lagu sheegay qof kasta oo ka baxa ama chance u hela anigu chance waxay ku qaadatay 2 sano saan lagu sheegay halka ku dhabe dhammaan ardayda fadhida maanta laakiin midka dhammaantood hal sano ay ku qaadatay oo waxay dhigayeen 2018 bura laakiin anigu 2017 ilaa 2019 in kala galay dhigay marka iyagu waa kuwa maanta ardayda maanta qalin jebinaysa ay soo keenay sawray oo waxyaabaha creativity-ga ay sameeyaan ardaygu marka hore warqad ku soo qaadaya wixii uu sameys lahaa ayuu sawirayaa maskaxdiisa ayuu ka corodaya waraaq ayuu ku sawiraya kadib ayuu computerkii la tagay computerkii markuu la tago siduu warqadda ugu sawiray si ka qurux badan ayuu computerku ugu sawiraya waxaan rajeynayaa inay tahay waxyaabaha Hargabis ay ku faanto akademiyadu oo ah inay ardayda baraan skills kula lagu barayo wax la barayo qofka inuu creativity han yeesho isagu wax curiyo in la yeesho kana waxa sameeyay inantii samaysay filkarto sawirkii inantii inankiisa ag taagnaa ee kartoonka ayaa inantaas sawirtay mawlkana waxaan filayaa inuu yahay LG isaguna sawir ma ah waxaan idin leeyahay ardayda Hargabis waxqabad ku gooyay maanta qalin jebinaysa
haddaan kasii soco tanna waa mid ka mid a shahaadooyinka ay ardaydu dhisaangareeyeen ardayga maanta hargabits ka baxay waxa uu awood ugu leeyahay shaqadiisa ama skillsku bartay wax kasta oo looga baahdo inuu samayn karo ardayga China jooga iyo ardayga hargabits ka baxay ee skills ka bartay waxaan idin sheegayaa in isku level yihiin maanta haba kala duwanaan dalka ay kala joogaan kana markaa waa mid ka mid a shahaadooyinka ay sameeyeen shahaadooyinka macallimiinta uu siin doono iyo shahaadooyinka hore ka qurux badanba ardaydu iyaga ayaa gacantooda ku sameeyey kana waa mid ka mid a bugaagtii sameeyeen dhammaan waxaas oo dhan idin tusayaa waxa weeyaan inaan milmidhigii fahansiiyo waalidkuna uu ku farxo ardaygiisii uu halka sano daba joogay wax soo barayay bal inuu ogaado waxyaabuhu sameeyey mid ka mid a ardayda hargabits ee maanta qalinjibinaysa ayaa sawiray oo sameeyey oo dhisaangareeyey buugga waxaan rajeynayaa inuu yahay buug soo bixi doona waxa la yidhaha badi casa ilaahdiisa haddaad maqli jirteen buugii minila madaxteedu waxyaabaha ugu faano runtii annagana halka khayrka noo galaysa waxaa ka mid a waxaanu ka qayb qaadnaa dhismaha qoyska dhismaha family cusub oo ku soo biiraya mujtamaceena islaamka gaar ahaan Soomaaliland kaasna waa mid ka mid a meherada ka dhacay magaalada Hargeysa oo arday ka mid ah ardayda maanta qalinjibinaysa hargabits uu sameeyey waa kaarkii lagu geliyay invitation kaarkii lagu geliyay meherka marka taas waxaan leeyahay qoyskana oo ka qayb qaadanaa dhismihiisa wasiyo sidaad u walaaragtaan ama u wada ogaataan kooraskan motion design ardayda baratay iyaguna waxyaabo ay sameeyeen waxaa kaloo jirta qaybta app diplomanka ama web diplomanka iyaguna qayb aad u balaaran macalinka u dhigaana uu ka yimid oo wadanka China guuleed waa macalinkeena ku baranay fursad waxa noo soo baxday inaanu barano waxa loo yaqaano digital design ama xirfad ku taxalluqda dhinaca ICT-ga in wax la design gareeyo iyo in wax la qurxiyo iyo in wax la sawiro marka dhalinyarada badankaygu ma aanan garanaynin fursadaasi siday marketka uga shaqeynayso inta ka bacdi waxaanu course-kii baan loo bilaabay macallimiinteedii aan aad ugu faraxsanahay inaan halkan maanta ka muuqanin markaanu bilownay course-yadii waxaanu sameynay graduation-kii hore 3 months markaanu 3 months-kii hore dhiganay xirfadii digital design-kii anigu waxaan noqday 3 bilood kadib qofkii ugu horeeyay ee anagoo course-kii ku jirna shaqo hela anigoon dhammaystiran hargabits taas waxa keentay dadaalkii ay macallimiinteeduna geliyeen waayo markaad aragto really skillka yaala suuqa iyo waxa lagu barayo inay 100% shaqeynayaan waxaad ogaanaysaa waxa dhalinyarada ka maqan inta ka bacdi waxaan u soo gudubnay koorsadii 3aad iyo 4aad waxaanu soo galay hal abuur ganacsi oon ku soo bandhigaynay ganacsiyo hadday noqdaan small business enterprises ka qofku intuu fikrad soo qorto deetana uu fikradiisa ka dhigay wax macquul ah oo shaqeynaysa deetana waanu qalin jibinay hargabits waqtigaasi waxa noo soo baxday markaa fursad in shaqo doon tiraado dhalinyarada la timaada fikirka hal abuurka ganacsi waxaan u sameynaynaa maalgelin
maalgelintii waanu ka qayb qaadanay si fiican aniga dhalinyaro badan oo kale deetana waxaan noqonay ilaa waxaanu kaga qayb gelaynay markaa 11 group 11kii group waxa la qaatay 3 group marka anagu waxaanu ka mid ahayn 3 group ee ku guuleystay maalgelinta markaanu maalgelintii ku guuleysanay waxaanu noqonay dhalinyar iskood u shaqaysanaya oo hal abuur ganacsi la yimid imiga anigu waxaan aad ugu faraxsanahay inaan isla markaana ka shaqeeyo shirkadda Astaan Cable oo badankiin wada taqaanaan inaan ahay editor ka tirsan oo dhinaca warbaahinta soo saara barnaamijyada iyo waxyaabaha taasina waa dadaalkii ay shaqadoon inta badan gelisay iyo Hargabits horta waxaan doonayaa inaan salaamo shaqadoon Hargabits oo si sharaf leh soo casuumay waxaan doonayaa kale inaan mahad celiyo tii uga u suurta gelisay ardayda halkan fadhida ee maanta qalin jabinaysa inay kharash iyo waqti iyo energy ba ay geliyeen inay ardaydaasi ka soo saaraan course-kaasi ay bareen runtii waxa kale oo rabaa inaan mahad celiyo ardayda oo hambalyeeyo hambalyo wad graduate garanaysaan graduation-ku waa dhamaadkii waxa aad baranaysay markaasi laakiin waa bilow wax kale marka imika hawshii idinka dhamaatay kama dhigno hawshii ba idinka wada dhamaatay imika waa inaad shaqadoon gashaan imika waa inaad sida Cabdiraxmaan halkan istaagay isu suuq geeyay suuqgeynta waxaanu haysanaa wax iskuul lagu dhigto la course maaha qof kastaaba wax uu suuq geyn karaa waa sida waxa aad suuq geynayso aaminsantii marka imika naftiina aad suuq geynaysaan idinku waa inaad aaminsanaataan waxa lagu baray sida uu sameyn karto waxyaabaha abuuri karto runtii waa waxyaabaan aad ugu faraxsanahay anigu haddaan hibaahay oo haddii xitaa ku sii hadlayo magaca Somtel oo ahay head of marketing manager waxaan jecelnahay inaan helno dad wadanka jooga markasta ma halkan imaado aan ka idhaahdo marka adigu halkaaga jooga aad maskaxdaada maasho dadaasho meel kasta inaad gaari karto inaad niyadoo sheegto ma aha inaad niyadaada ku xidho halkan aan joogaa wadan aan la ictiraafsanayn weeyaan waxaas waxa la dhahaa excuse marmarsiyo waad marmarsiyoonaysaa adigaan rabin wixii inaad qabato waayo qofku wax kastuu rabo inuu gaadho wadadeedu helaa ya maanta haddii maanta gidi leeyahay waxa ma yeeli kartid oo ogahay physically bila aadan ahaan waan karaya wax kasto ay tahay meel kasto joogo wixii waan sameyn karaa haddii aniga soo go'do marka waxaan idin leeyahay naftiina aamina yeesha inay maxaa la dhahdaa will qofku inuu yeesho wax muraadkiisa uu sida doonto ma noqoto ku gaadho anigoo ah madaxa suuqgeynta iyo horumarinta shirkadda daabacadda xayeysiisyada ee Tayo oo ah runtii shirkadaha hormuudka ka ah xagga xayeysiiska daabacadda xayeysiiska waad ku mahadsantihiin bahda shaqadoon inaad nagu soo casuuntaan xafladan aan kala soo qaybgalno oo la qaybsano ardayda iyo waalidiinta runtii farxadda ay wadaagayaan runtii laba qodob baan halkan ka jeedin doonaa ardayda mid waa dhiirigelinaya ardayda midna waxa weeyaan runtii mahadnaq bahda shaqadoon haddaan ku horeeyo ardayda runtii xayaan waxbarasho ayaad soo gasheen mashruuc baad ka faa'iideysteen programka Hargabits baad ka faa'iideysateen runtii waxaan kula talinayaa maadaama aad imika wax barateen waxaad joogtaan first stage-ka joogtaan wax la doonayaa inaad idinku markaa isii develop garaysaan runtii aniga iyo hibo kale marketing ka shaqeynaa marka marketingka aad ka shaqeey marketingka waxa ugu horeeyo wax la yiraahdo you have to believe yourself marka hore inaad adigu is aaminto markaad adigu is aaminto ayaa dadkana dee wuxuu gudbin karaysaa wax ka iibin karaysaa marka ugu horeysa waxaan idin leeyahay no one will support you until you support yourself ma jirto nolosha cid ku caawinaysa adiga ilaa ayaad adigu xasaabso arrin oo prestige-kiina ku jeedinaya iga soo baxay inaan laba kalmadood ka idhaahdo iyo kalmad dhalinyaradan iyo suuqa isugu xidhmayaan ku saabsan inaan baalkan prestige nooga jeediyo runtii magaciisa uu dhaafay aad iyo aad buu mahadsan yahay kelmaddu aad u xisaab badan buu yidhi ahayd patient to be professional waana u samirtaa saad u noqoto qof xirfadiisa aad iyo aad looga helo runtii haddii tiimka maanta la soo saaray amba dhalinyarada la tababaray haddii arrintaa rumaysan yihiin jaamacad iyo aqoon nolosha idinka dhiman ma jirto
intaasun baan jecel inaad wada gutataan ay dhabna idinka noqoto runtii waayo waxaan ogahay qofka dhalinyaradu markuu suuqa yimaado dadkeenna inta badan suuqa ka shaqeeya muddadii aan soo shaqaynayna oo dhan waxaanu aragnay dadkeenna weliba Soomaalidu kuma fiicna waxa la yiraahdo waxaan uu qabanayo inuu is yiraahdo sida ugu quruxda badan ee qof bilaadan uu qaban karo uu qabo inta la yara geedgeedo laga gaarsiin ba laga carraa moogtay dadna wixii wada heer oo kala silan u baadho qofka loo shaqeeyo loo tuura haddaad aaminsantay waxa aad qabanayso sida ugu wanaagsan uu qabo samir bay kaaga baahantay aduguna hadhow waad baranaysaa aqoon baad u yeelanaysaa adigu inaad shaqooyinka markaa hadhow isku badbadasho mooyaane iyo qofka international ka inaad la tartantay adduunka meeshu doono qofka wax ka soo bartay mooyaane meel hoose aad la ku soo dhici maysid taasaad markaa aduguna aad ka faa'iideysaa waalidiinta tacab badan geliyeen inay noo mahadsantihiin shaqadoon iyo macallimiinta iyaguna guud ahaan farxadda ka qayba iyo intaa la soo casuuba guud ahaan waan mahadsannahay waxaan u baahanahay un kor intii tartaan la siiyo wala yiri haddii wax laga dabageynay dadka waaweyn tartaarma way tartaarmino hibo kala la joogto tartaarantay way wax dhaqaaqdo wax sax ka dabageey waxa ku fiican tahay waxa weeye adduunka inta la nool yahay waxyaabaha uu Ilaahay noo balan qaado waxa kamid ah irsaqa dhamay irsaqa meel binu qoray wixii Ilaahay noo balan qaaday bal muddo inuu tacab badan gelino wixii adduunka la kala soo shaqaystay waqti badan bayna ma siino wax badan bay naga maqan xilligan la joogo ee ama qarniga la marayna inaad shaqaale noqoto oo cid u shaqaysa waxay u dhigantaa xilligii dadka madow la gumaysan jiray hore soo xilliga soo marin loo jiray qolada waa slave soo wala gumaystay wax sar u qaaday qofka slave ka hada iskuulada soo dhigateen waxyaabaha lagu qabsan jiray waxay kow shaqo ka cusub qaban kara loo diri jiray laba xorriyada laga qaadi jiray saddex hadii adduun lagu siiyana waxaan u dhigma shaqada qabanayna si jiray maantana intiiba waxaad keenaysaa qofka aad u shaqaysid marka waxay nolosha ku fiican tahay ku wanaagsan tahay in aad Ilaahay ka baridin aad noqoto adigu qofka loo shaqeeyo instead aad noqon lahayd qof adigu shaqo taga ama ay u shaqeeyo marka waqtigiina waa haysaan dhalinyaro badan oo muuqata weli qaabka la yidhi dadaalka shaqado barnaamijka wadaana ma aha inaad dhammaantiin shaqaale noqotaan waa inaad idinku aad noqotaan dad xirfad la yimaado oo loo shaqo tago xigta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ardaydaydan aad iyo aad u quruxda badan da'yar iyo da'dhexaba leh ka kooban maxay hayday maanta afarta daafood ee magaalada aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay waxbarashada aad qaadateen Allah idinku anfaco dalka iyo dadkaba wax ugu qabta horumarka laga maarmo maanta maxay hayday dal kale waxaynu ka doonaynay insha Allah noqdo baan leeyahay marka labaad waxa weeyaan hay'adeenan maxay hayday shaqadoon iyo Oxford maxay hayday iskuulkan maanta ay iyada oo Somaliland oo la leeyahay waa wax yar oo kooban aynu Soomaaliya aynu kaga guuleysanay madax aynu ugu helay inaynu nahay dal horumaray alxamdulillah hay'adda aad baan soo dhaweynaynaa dhowr xafladood oo hore ay leeyihiin waan ogaa waxaad moodaa inay maanta ku joogsadeen dariiqii aynu u maraynay horumarkii Somaliland annagu wasaaradda waxbarasho ahaan waxaa ka mid ah education policy-ga yaga in la helo farsamo gacmeed farsamo technology farsamo noocyo kale oo fara badan number 1 arrintan maanta aad ka hadlaysaan runtii waxyaalaha adduunka ugu qaalisan bay ka mid tahay lacagyo fara badan baa ku baxo qarashyaa ku baxa marka sidan aad u soo dhaweyseen isoo sheeg shaqadoon iyo hay'adaha maaragtay la qabtay runtii waa waxa aad iyo aad loo soo dhaweeyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaad moodaa inaad beer aad bilowdeen beertu dhowr nooc bay leedahay tii haruurka iyo marka laga yimaado beerta dadka ayaa ugu qaalisan marka idinku waxa ku jirta beer bini aadan ah oo baritola aynu maaragtay wadanka anfici doona dalkoodana anfici doona naftoodana anfici doona kulligeen hambalyan ilaa ardayda waxaan guddoonsin doonaa macallimiinteeda qaaliga iyo qiimaha nagu leh aanu ku horreysiiyo macalinka ugu horeeya Duuleed Xasan
oo la-aantii aanan waxba baran lahayn oo isagu ahaa macalinka keliya motion designka kusoo dhawaan layahay ardayga gudaysin doona روادنكين قول وعن عدوك وافو نول الوناكسن يا برواغو نبت لقو وداغو أكوا روادنكين waxaan imika haatan goobtaynu ula sugan labada hablood aan hariyo habeen xitaa hadday fasax yihiin aan daaleen khadraysa qiifaysa عدوك وافو نول الوناكسن waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo axmed cali jaamac khadra cali cabdilaahi abshir iyo axmed shariif si ay inoogu guddoonsiiyaan ardayda qalinjabisay shahaadooyinka rawaajibkiisa wahsan mayno waawan mayno warwareegi mayno weeweecan mayno wahsan mayno waawan mayno warwareegi mayno weeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan